السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعوة شيء قيمها قدرين تيجي حسب له وبرامج كني دنيرة تي في قرنكا ووقت كان خلاك دعوتان تلفزيون قرنكا الصومالي الآن. دت كانوا صورة تجلي برامج كان واحد كهلي كران ويب سايت كو تي في قولي هاي الصومالي ناشونال تي في وحنا بهالعلية دنيرة عبد الولي يجمعالي يجماليو برامج كان نعاون دونا أنت وصعده. تطوات كانوا حنا كقهر دونا ديرجين تادين على دنيرة الصومالي الآن. أنا ورنتي آدي هذا قوم هالعلنا إحنا مركنا برامج كنكو عسوني جمال محمد جامع وأحويها كلها وسيرة الصومالي الآن ووقتي سقالي جاي سوق حوله بدن يعني هيا وصهورين دنيرة الرئيس الصومالي كلا قيب قاته فالمركو ورنتي جمالية برامج كان هنكسر دوية إن جمال برامج كسر دو. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد آد بنقول وهاي برامج كا كده هذا دنيرة الصومالي الآن مركز تيجوجان gaar ahaan dhalinyarada caasimada ku nool aan maanta arkaysa wada joogno waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan kaloo aan salaamayaa mahadnaqinayaa dhalinyarada kala qayb qaadanaysa barnaamijka oo diyaarintiisa oo Jamaal iyo Jimcaale iyo ay ka mid yihiin sidoo kale adigana waxa weeye waqtigaaga aad siisay insha Allah waa kaaga mahad celinaya runtii farxad weyn bay tahay maanta inaan ka qayb qaato ama aan ka soo qayb galo barnaamijka dhalinyarada dhiirigelinta dhalinyarada Soomaaliland ee ka baxa TV-ga qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan ugu faraxsanahay inaan barnaamijkan ka qayb qaato hadii aan yaro sprasha ku horeeyo magacayga waxa la yiraahdaa Jamaal Maxamed Jaamac waxaan kamid ahay xogayaha golaha wasiirada ee Jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan kamid ahay dhalinyarada maanta qaranku uu ku dhaarto ama ku dhaadanayo run ahaantii intii aan joogay shaqada tan ama aan kamid ahaa siyaasadda ku jirayna dee wax badan oo isbedel ah baa dalka ka dhacay hadii aan yar dib ugu noqdo background-kayga waxbarasho ama noloshaydii hore aan waxaan ku dhashay magaalada Ceergaabo sax noloshaydii qayb kamid ah waan ku soo qaatay markii dambana magaalada Laascaanood xarunta gobolka Sool ayaan ku noolaa waxbarashadeedii tii secondary-ga iyo tii sare baan ku soo qaatay qayb kamidana waxaan ku qaatay magaalada Garowe gobolka Nugaal muddo badanna waxaan ka soo shaqeynayay waxbarashadii ka bacdi waxaan ahaa social worker ama waxaan u shaqeynayay hay'adaha international community-ga iyo local NGOs fara badan oo ka shaqeeya deegaanada gaar ahaan gobolka Sool Xaysimo iyo Sanaag baan ka shaqeynayay dabcan kamana maqnayn barnaamijka siyaasadda oo intaan gaarka u shaqeysanayna siyaasadda waan ku dhex jiray marka waxaan kamid ahay hadda dhalinyarada inta badan xukuumadda Soomaaliland ama siyaasadda Soomaaliland ee ah ku saleysan wada jirka iyo nabadeynta iyo xoojinta dhalinyarada ragga aadka uga shaqeeya gaar ahaan gobolada bariga sax way aad baan kaaga mahad celinaa sida qiimaha badan ee soo koobtay markaan ku hadlayno dhalinyarada reer Soomaaliland boqolkiiba 80 jawaal waxa la yiraahdaa bulshada inta u badan waa dhalinyar walka waran horumarkay sameeyeen muddooyinka ugu dambeeyay intii aad siyaasadda ku jirtay iyo intii aad dusha kala socotay sida sheegtay waa run bulshada Soomaaliland marka la eego ama bulshada kale ee Afrika waxa u badan dhalinyarada u badan qiyaas boqolkiiba 70 boqolkiiba 80 ku dhow baa dhalinyarada dalkeena runtii isbedel badan intii xukuumadda uu hogaaminayo Axmed Maxamuud Siilaan iyo madaxweynuhu ay dhalinyaradu sameysay haday tahay dhinaca dhaqaalaha haday tahay dhinaca waxbarashada haday tahay dhinaca siyaasadda oo inta badan xiliyadan dambe aan u jeedno in xubno badan oo dhalinyaro ah ay ka muuqdeen haykalka madaxda qaranka ay ka muuqdeen ay ku jiraan oo taasi aysan marxaati u baahnayn oo la wada og yahay dhanka horumarka iyo waxbarashadana maanta dee uu jeedna dhalinyarada Soomaaliland meel marayso intaasoo arday ama intaasoo dhalinyaro ah jaamacadaha ka soo baxay oo master iyo PhD meelana waxay ka mid yihiin dadka maanta awoodda siyaasadeed iyo awoodda waxbarasho iyo awoodda dhaqaaleba in badan dalkani ay sheegay hogaaminaysa dhanka waxbarashada kale intaas oo jaamacadood iyo intaas oo iskuul baa jiro oo ay ardayda dhalinyarada ka soo baxdo oo inta badanna ay mas'uuliyiin ka yihiin ama ay hogaaminayaan dhalinyarada Soomaaliland dhanka siyaasadda waslada garanaynaado iyadoo waxa weeye sanadihii ugu dambeysay ilaa dhalinyaro 40 gaaraysa ama ka badan waxay ka mid yihiin xubnaha dawladda golaha wasiirada ku jiraan agaasimayaasha ka mid yihiin xubnaha kale ama
shaqaalaha dowladda ay ugu badan yihiin marka horumar la taaban karo gaar ahaan 7 sano uu hogaaminayay sanadahan u dambeysay hogaaminayay madaxweynuhu dhalinyarada Soomaaliland ay gaadhay way aad baan mahadsantahay markaanu ka hadlayno dhalinyarta gaar ahaan waxaanu maanta aad kaaga mahadcelinayaa inaad warbixin badan naga siin doonto dhalinyarada gobolada Sool iyo Sanaag iyo Buuhoodle iyo Barigo dhan bal waxaad ka warantaa iyaga laftigooda dhinaca siyaasadda iyo horumarka iyo waxbarashada ay ka gaadheen muddooyinka u dambeeyay socdaal baad ku tagtay si adoo maasan runtii marka la yiraahdo dhalinyarada Soomaaliland gaar ahaan dhalinyarada gobolada Bariga ku nool sanadihii hore ama waqtiyadii hore waxaa jiray kalago ama gaab u dhaxeeya iyaga iyo xukuumadda dhalinyaro inta badan siyaasadda kama qayb qaadan jirin inta badan deegaanadaasi waxaa ka jirtay xaalad siyaasadeed oo kala duwan bay soo mareen oo isla garanayno laakiin sanadahan kan u dambeeyay waxaa aad sheegay isu bedelay dhalinyaradii aad bay isu bedeshay waxaa muuqata inay hadda soo jeesteen waxaa muuqata inay hadda siyaasadii ka qayb qaadanayaan waxaa muuqata inay dhaqaale ahaan iyo aqoon ahaanba isbedeleen oo runtii maanta marka deegaanada la eego gaar ahaan laascaanood oo kale maanta dhalinyaradii ama aan iskuuladka ahayn ama iga dambeysay ee adduunka aaday wax soo bartay dalalka dibadda u baxay iyagoo wax soo wada bartay ay dalkii dib ugu soo wada noqdeen taasina ay keentay nabadgelyada taamka ah ee ka haran qaaday gobolada Bariga gaar ahaan Sool iyo Xaysimo iyo Sanaag ka haran qaaday oo inta badan ah siyaasadda dawladdu in gobolada si nabadgelyadoodana loo sugo in dhalinyaradii la dhiirigeliyo oo ay ka qayb qaataan siyaasadii codkooda ay iyagu xor u yihiin oo ay sheegay soo gudbiyaan cid ay doonayaan ay codkooda ku taageeraan marka isbedel muuqda ba ka qayb qaatay runtiina waxaa ku mahadsan madaxweynaha qaranka ku mahadsan oo siyaasadiisa buddig uga dhigay in deegaanadaasi nabadgelyana laga tisqaado horumarkoodana laga shaqeeyo waxaa sanadihii u dambeeyay la geliyay dhaqaale aad u fara badan mashaariic aad u fara badan baa laga dhisay oo jaamacadda Nugaal ay ugu horeyso oo runtii ah jaamacaddii ugu horeysay deegaanada laga sameeyo dhismo dawladdu sameysay marka isbedel weyn oo la taaban karo baa ka jira deegaanada dhanka marka la eego way jabal markaan eegno deegaanada imka meelo badan baa doorashooyinka laga codeyn doonaa in meelo badan baa runtii aan awal laga codeyn jirno imka laga codeynaya saa sheegtay doorashooyinka soo socda baarlamaanka iyo kuwa deegaanka dhalinyaro badan baynu ognahay oo han loo himilo la ilaa deegaanada ku nool yihiin fursad intee laga bawtay in ka faa'iideystaan runtii fursad aad u weyn oo 100% ah bay arintan diiwaangelinta iyo doorashooyinka soo socda ee la filayo inay dalka ka dhacaan ay u saamixeen dhalinyarada oo hadii aanan dafireyn anigaaba kamid ah waxa weeye xilligii hore deegaanada diiwaangelin kama dhici jirin doorashana kama dhici jirin siyaasadda inta badan waxaa u matali jiray ama active u ahaa dad waayeela ama dad access u leh Hargeysa inay yimaadaan oo meelahan jooga intii diiwaangelintani dhacday oo runtii number aad u badan oo iska diiwaangeliyay walaal dhulka qaarkii ama dadku sidii aan filinaysan isu diiwaangelin haddana waxaa muuqatay in ay soo baxday in badan oo dhalinyaro oo ay hortaagnaayeen xaydaabka siyaasadeed oo ah inaysan iyagu u soo gudbi karin caasimadda inaysan awood u lahayn inay codkooda muujiyaan inay u saamaxday maadaama dadkii ay isdiiwaangeliyeen maadaama doorashooyin soo socdeen inay heleen chance ay fikradahooda siyaasadeed iyo hankoodaba ay ku soo bandhigaan oo maanta dhalinyaro badan oo kamid ah dhalinyarada deegaanka ka soo jeeda ay ku taamayaan sida u noqon lahaayeen baarlamaanka u soo gali lahaayeen qaar kamid ah sida xubnaha golaha wasiirada uga mid noqon lahaayeen iyagoo ka qayb qaadanaya ama active ka ah xisbiyada qaran ee dalka ka jira runtii marka la eego xisbiga kulmiye ama xukuumadda iyo xukuumadda kulmiye oo madaxweynuhu hogaaminayana dadaal badan iyo effort badan bay gelisay oo wala socotaan ilaa taleex inuu musharaxa tagay Musabbix Cabdi musharax madaxweyne ahna gudoomiyaha xisbiga kulmiye oo ilaa taleex tagay habeenka anu wala soconay meel la yiraahdo Caroole baan seexanay oo meel banaan baan seexanay sidii geeltirihii iyo dhaqankii hore Soomaalida marka dhiirigelin badan oo siyaasadeed baa dhalinyaradii ay maanta qabaan waxa kale oo aad la socotaan oo in markii ugu horeysay taariikhda Laascaanood ay ka dhacday in 300 ilaa 400 oo dhalinyaro oo reer Laascaanood oo u badan aqoon-yahankii inta badan graduate ah oo master iyo degree koo wada haysta inay xukuumaddu shuru qabatay wasiirka madaxtooyada Maxamed Xaashi Cabdi iyo gudoomiyaha xisbiga kulmiye ay markii ugu horeysay Laascaanood ka dhacday xafladaas oo aan taariikhda hore uga dhicin أول مسؤولين تمرك تجان كوري بيجلي تيرين أما هوتيل بيدقي تيرين
waxaa laga yaabaa odayaal iyo in ay dan ka leeyihiin ama in dan ka yeelataa inay is arkaan, laakiinse shacabka inta u badan oo ah dhalinyarada iyo dumarka ismay arki jirin. taasina waxay keenaysaa isbedelkan ka dhacay gobolka ka dhacay, haduu yahay dhanka diiwaangelinta dadka isdiiwaangeliya, hadday tahay dhanka amniga iyo hadday tahay dhanka siyaasadda guudba. way markaan eegno dabcan intaa horumarka sheegtay qaar ka mid ah laga yaabo inay cabasho qabaan oo kale sida inay garoomada aanay haysan oo kale aanay haysan hay'adihii inta badan dhalinyarta gobolada bariga ay ku yaryihiin caasimaddu ku badan yihiin NGO-yadii oo kale fursado badan oo kale inay wali xaniban yihiin markaad xogogaal aad tahay ma muuqataa? way jirtaa dabcan dee wax badan oo dibadhacii gobolada uu ka jiray, inta badanna dibadhac marka leeyahay deegaan buu ka jiraa ama gobol buu ka jiraa sababuu leeyahay. sababaha ana waxaa ka mid ahaa nabadgelyada oon marka hore caga badan ku taagnayn, siyaasi ahaan oo qulubta dadka deegaanada kasoo jeeda ama Somaliland aysan in badan ku kalsoonayn, ama ay jireen waxyaalo cabashooyin ama tabashooyin badan oo dhanka saami qaybsiga siyaasadda oo kale ku salaysan. marka inay jireen siyaasada xagga dibadda kaga imanaya oo matalan dhaqdhaqaaqyadii Khaatumo oo kale ACC ilaa fikirkii siyaasadeed ee Puntland. marka dabcan arrimo noocaas ah jiray, waxyaalahaasana keenay inta badan inay dib u dhacaan ama ay inta badan ku cawdaan Somaliland way ka gaabisay halkii looga baahnaa. maanta waxayna way soo bedeleen, bulsho ahaanna dadkii way soo bedeleen oo waxa weeye maanta waxay diyaar u yihiin inay wax badan Somaliland la qabsadaan, ay gaadhaan walaalahooda kale gobolada kale ee Somaliland, dadaal dheeraad ay muujiyaan, quba joogtii baa soo noqonaysa oo magaalooyinkii maalgelinaysa. dhanka xukuumadduna waxay xukuumaddu diyaar u tahay ama ay dadaal badan ku bixinaysaa in ay wax alaalay wixii ikraankeeda ama ay samayn karto inaysan ka hakran, wixii tabasha dhanka siyaasadeedana meesha laga saaro. oo la socotaan waxaa socday muddooyinkii u dambeysay wadahadalladii Khaatumo waa kuwa socday oo hadda meel fiican maraya runtii. shirkii u dambeysay Addis Ababa qodobo fiican ay kasoo baxeen, waa markii u horeysay qodobo ama wax la isla qaatay oo wax la soo saaro. waxaa soo wada dareynaya dhammaan bulshada Somaliland oo dhan. dhanka kale waxaa ka socda shirar qabiil ama shirar deegaan oo xukuumaddu iyo dadka deegaanku ay ku wada hadlayaan, oo shirkii Awrbogoys ka dhacay, kii Adhi Cadeeye, kii Caynabo ka horeeyay, shirarkaas oo dhan. marka wax badan oo tabashooyina ama caqabadaha waxaad moodaa in hadda laga soo gudbay, isu dhawaansho fara badanna uu muuqdo iyo wada jir ah in qarankan curdankaa sidii loo ilaalin lahaa, loona wada dhisi lahaa, loona horumarin lahaa la isla gartay. taasna insha Allah wixii dhimanna dib ay ka bixsami doonaan hadii lahayd moodada waa lagu jiraa. way Jawaal Maxamed Jaamac, markaan taa aad ka hadlaysay shirarka ka dhacay Awrbogoys iyo Adhi Cadeeye kale waxaan ogeyn dhalinyarteedu door muhiim ah ku lahayd, marka aduna qaybaad ka ahayd intee ileeg baa laga karaa inay shirkaasi u dhacay nabadgelyada badan timaado gobolada bariga way ka qayb qaateen, gaar ahaan aqoon-yahankooda dhalinyarteed ka mid tahay? dabcan aad bay uga qayb qaateen. shirarkaas dadkii wadayba waxay u badnaayeen marka laga tago dee waayeelkii talada lahaa go-aanku taladu ka go-aysay dee waayeelkii reerka. marka laga tago dadka waday abaabulayay ka shaqeynayay waxay haayeen aqoon-yahanka ama dhalinyarada deegaanada kasoo jeeday haayeen, kuwa gudaha dalka jooga iyo kuwa qurbaha joogaba oo runtii taageero iyo dhaqaalaba la garab istaagay. go-aamo dhaxalgala iyo heshiis dhaxalgalana ka soo baxay. dhalinyaradoodii xoog bay ku lahayd, xubnihii ka shaqeynayay ama ugu firfircoonaa dee anaaba ka mid ahaayo goobjoog baan ahaa bilowgiisii ilaa dhammaadkiisii. marka dareen badan oo siyaasadeed baa ka muuqday dhalinyaradii xilliga shirarka ka shaqeynaysay. runtiina wax badan oo isbedela intii lagama sii hadhin oo dee inta la shiray go-aan la gaadhay lagama sii hadhin. dadaalkii weli dhalinyaro way wadaa, wacyigelin bay wadaa, deegaanadii bay intaa ku shiraan, halkan ay ku shiraan, dabadihii bay abaabulka wadaan. abaabulka iyo wacyigelinta wadaana wuxuu ku salaysan yahay uun sidii loo xoojin lahaa wada jirkii iyo midnimadii bulshooyinka deegaanka kasoo jeeda iyo guud ahaan Somaliland. dhanka xukuumaddana dee dad rag badan oo dee ama dhalinyaro ama waayeela kaga jiro oo yana dee hawshaa gacanta ku hayo oo ka shaqeynayo aan ka fadhiisan. taladiisuna intii kuma ekaane intaa way socotaa oo waata dad safarada xukuumaddu 2-3-4 goor dambe ay ku noqdeen oo ilaa Taleex la tagay oo caasimadii Daraawisheeda caasimado badan baa jiro caasimadan Somaliland tan bay ka dhacaysaa caasimadii Daraawisheeda dimeeshii ugu horeysay oo taariikhi oo musabixi u uu ka qudbadeenayo taariikhda sheegay waa tii jirtay. marka wax badan oo isbedela
baa dhacay. way jawaal markaynu nimaadno dhinaca shaqooyinka oo kale dhalinyarta gobolada bariga ku nool oo kale inta badan waxay oran jireen shaqooyinka garabaysan ama cid garaasoo baa la siiyaa oo kale tusaale ahaan markaad shaqadaada golaha wasiirada xogayaha golaha wasiirada tahay tusaale nagu soo qaado intee ileega maanta cadaalad ay u helaan in dhalinyarada gobolka bariga ay ka qayb qaataan in shaqooyinka ay ku buuxiyaan orada marka shaqo laga hadlayo ama de horta waxa ilaahay ku qoran ba qofka u qoran si fiican cabashadaasi in shaqooyinku ama reer lagu helo ama oday dabada ka riixo bariga kaliya kuma goobneed guud ahaan Soomaaliland oo bay ka jirtaa dhanka way u sii badan tahay runtii waxyaalo badan baa sababay oo in badan oo kamid ah xiliyadii ama fursado badan ay banaanayeen ama shaqooyinku sidan ay ka sahlanayeen dhalinyaro badan oo aqoon soo bixin inta badan deemayba jirin ba ama waxa laga yaabaa in aan dhalinyaradu baad ku baraarugsanayn war dalkan waa la wada leeyahay ku qabsada waladan reer Hargeysa ama aad doontid gobolada dhexe bari oo sheegay beesha dhexe la yiraahdee xaq uma leh waa la wada leeyahay ku qabsada oo shaqooyinkii doonta laakiin arrimahaasi wax badan bay iska bedelay kulli hadda dabcan calafka qofka ku xiranta dhalinyaro badan oo shaqeysa waa jirtaa 2 sano u dambeysay oo hay'adaha dawladda kala duwan iyo kuwa international community-ga iyo intaba ka hawlgasha inkastoo numberkii loo baahnaa ama xil aan la gaarin waxa kale oo jira siyaasad dawladdu hadda ay leedahay oo ah maadaama wax badan iska soo bedeleen xaggii bariga oo wada hadallo iyo heshiisiin iyo xaaladii dagaalka laga baxay si kale markaan u dhigo in dhalinyarada ka soo jeeda gobolada bari ama caasimadda ha joogeen ama deegaanadooda ha joogeen in dawladdu shaqo abuur samayso inta badanna markay dawladdu ama cid shaqaalaysiinayso ama shaqaale la qaadanayana ilaa iyo qoonto la gaarsiiyo in loo sameeyo si kor loogu soo qaado dhalinyarada waxbaratay deegaanada ka soo jeeda kamida shaqaalaha dawladda dhanka siyaasadda marka la eegana waxaad moodaa hadda in kulli wax badan iska soo bedelayaan oo kulli anigu ma horeeyo laakiinse rag badan oo dhalinyaro ah ama xukuumadda ku jira ama xisbiyada kamid ah oo iyaga laftoodu usoo dagaalamaya ama usoo tartamaya siday u noqon lahaayeen mas'uuliyiinta berita ee qaranka way markaan eegno dawladihii ugu dambeeyay Soomaaliland soo mara way yareeyeen in la arko dhalinyar intaan laga siyaasadda ku jirto kale markaad eegto madaxweynuhu fursadda uu siiyay dhalinyarada kale inay ka qayb qaataan siyaasadda ma la oran karaa waa lagu guuleysto kuwa kale iyagana la qaadan karayo fursad iyo tusaale fiican bay yihiin dabcan ha aad baa loogu guuleystay madaxweynuhuna intuu hogaaminayay xukuumadda hogaaminayay wax badan oo isbedel ka sameeyay dhanka ka qayb qaadashada siyaasadda ee dhalinyarada guud ahaan Soomaaliland waxa aan markhaati u baahnayn oo isla wada ognahay in dhalinyaro badan ay maanta ku jirto xukuumadda golaha wasiirada kamid yihiin hay'adaha dawladda kala duwan agaasimayaal yihiin golaha deegaanka kala tusaale u ahoo xeerkii xadidayay in dhalinyaradu aysan isu soo sharaxi karin uu meesha ka saaray oo dhalinyarada hadda maanta u badan golaha deegaanka ama maayirada oo kale ay u badan yihiin dhalinyaro yihiin marka wax badan oo isbedela baa intii madaxweynuhu hogaaminayay Axmed Maxamed Xuseen ay hogaaminayay xukuumadda wax ka sameeyay xagga dhalinyarada waayo taasna waxaan garan karnaa ama muuqataba madaxweynuhu yahay madaxweyne khibrad badan oo markuu daraasad ku sameeyay arkayba in dadkii waayeel wax yaqaanay ama dadkii shaqada ku jiray ay sii dhamaanayaan sii goobayaan meesha ka sii baxayaan si loo helo dad shaqadii ku tababarta tahay dhankii siyaasadda iyo tahay dhankii shaqada caadiga ahaydba in dhalinyarada fursad la siiyo intaana aad buu loogu guuleystay wax badanna waa laga qabtay waxyaalaha dhiman oo inta badan gobolada bariga ay kamid yihiin oo xagga dhalinyarada cabshada ka jirtaan insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa inta u dhiman inuu soo bixin doono hadii la hadlo way daawadayaasha barnaamijkan la socda nagu soo biray waxaan xasuusinayaa barnaamijka Riyakay dhalinyarada oo kaga hadlayno martii noogu yahay Jamaal Maxamed Jaamac oo ah xogayaha golaha wasiirada Cabdiwali iyo Jimcaale iyo Jamaal iyo nagala qayb qaadanayaan aad baan u hadalaya marka Jamaal eegno shaqadan waxaad haysto waa shaqo aad iyo aad u badan bal waxaan warbixin naga siisaa shaqadan waayo-aragnimada iyo dabeecadda aad u leedahay iyo intaasoo kuna wasiiriyo intaasoo wasiir ku xigeen iyo sida maamusho
runtii kulle hadda culays badan oo aan ka dareemaya ma jirto. waxaan u arkaa dee shaqo caadiya inaan hayo. intii aan joogayna dee kulley khibrad badan iyo waayarag badan dee waan ka dhaxlay oo markaad qofku dee shaqo ku cusub yahay kulley caqabado way ka hor imanayaan way iska jirjiraan. laakiinse hadda alxamdulilah rabbil caalamiin wax caqabada ama wax culaysa waan dareemaya ma jirto. waxyaalo badan oo kulley khibradan ah waan ka faa'iiday hadday tahay dhankii shaqada iyo ii sheegay dee mas-uuliyiinta intaa leego qarankan dhan dee mas-uuliyiintiisa ilaa madaxweyne ugu sarreeyay inaan hawshii la hayo oo qayb ka ahay. mas-uuliyiin badan oo cusub oo dee sheegay aan isku baranay dad badan oo kale oo iyana shacaba. marka kulley wax badan oo khibrada baan ka kororsaday. culaysna ma dareemay hadda igu hayso waayo waxaan u arkaa shaqooyinkii hore aan ahayee caadiga ahaa midun la mido oo iyana aan qaranka u hayo dee iskii baan u shaqaysan jiray oo waxaan ahaa nin danihiisa ka shaqeeya. maantana inaan usoo gudbay inaan qarankii u shaqeeyo ummaddaydii aan u shaqeeyo oo aan u adeego sidaasun baan u arkaa. way haynu ku noqono dhalinyartii gobolada bariga oo kale waxay leeyihiin dabcan siyaasiyiin badan baa kasoo jeeda xildhibaano badan baa kasoo jeeda adiga baa kasoo jeeda. marka laga hadlo inaad dhalinyarada dhiirigelin siisaan oo iyaga laftigooda horumarkooda iyo waxbarashada ka shaqaysaan waqti intee leeg bay geliyeen baad soo kartaa? dabcan waqti badan baa la geliyey. dadaalku horena wuu socday haddana wuu socdaa. waana wadnaayoo waxa weeye kama nasanayno inaanu deegaan ahaan dadka bariga kasoo jeeda ama deegaanada barigo inaan wax badan ka bedelno hadday tahay dhanka siyaasadda, hadday tahay dhanka dhaqaalaha, hadday tahay dhanka waxbarashada. runtii maadaama daan wadan siyaasadda uun ka agdhowhay xooga uun waxaan saaraa in dhalinyaradii fikirkoodii siyaasadeed aan wax badan ka bedelo aan u soo jahayno inay ka qayb qaataan ama ka mid noqdaan xubnaha dowladda ugu jira deegaanada ama hadday doonto heer wasiir hadday tahay iyo hadday tahay baarlamaanka waa inay ka qayb qaataan oo isbedel la taaban karo oo xaggayga ka yimaado. marka anagu isbedelka keenoba deegaankeena isbedelku ka imanaya iyo guud ahaan Somaliland oo dhan. marka dadaalo badan baa socda. waa sax. waxaa jira dalad dhalinyarta Soomaaliya oo magaca guud ee dhalinyarta oo dhan ka shaqeysta. مثلا هي يقلبتي وقبلدي بريقة iyo kaalinta ay ku lahaayeen dhalinyarada reer Soomaaliland way ka qayb qaataan. طبعا aad bay uga qayb qaataan way Soomaaliya intaan xasuusto waxaba ku jiray Cabdiqani Jiro aan saaxiibo ahayn oo classmate ahayn oo mas'uuliyiinta ugu sareeyay ka jiray intaan garanayana dee aad bay uga shaqeyn jireen gaar ahaan Laascaanood oo dhowr goor baan isugu nimid mas'uuliyiin ka socoto Cabdiqani uu ka mid yahay marka raadkooda ama shaqadoodu uu ka muuqda gobolka Sool walaga yaabaa dee meelaha aysan gaari karin inay jiraan oo caqabada dee hortaagan yihiin oo imkaaniyaadka ama awoodoodu dee waan garan karnaa dhalinyaraan intay leeg tahay marka laakiinse shaqo ahaan wax badan bay ka qabteen ururada deegaanka ka soo jeeda ka mid ah oo haday tahay boardka iyo haday tahay sheegay urur ahaan buu ku jira marka shaqooyin badan oo la taaban karay kolley ay ka qabteen intaan dareensanahay ama ogaa way inoo gabagabadii barnaamijkeena ku dhow maxaad leedahay mustaqbalka ku qorshaysan waxyaa hay'ado meel badan baa soo bartay maxaad higsanaysaa horta mustaqbalka dee ilaahay baa og qofku dee meesha uu ku dambeyn doono guud ahaan Somaliland dhalinyarada joogta waxaan rajaynayaa mustaqbal wanaagsan dalkeena ictiraaf hela inagoo aqoonteena horumarto dhaqaale ahaan iyo aqoon ahaan iyo sheegay dad ahaan bayna kornaan rajaynay hadii la haydmo gaar ahaan aniga kulli hami fara badan oo igu jira ma jeclin aan hadda soo qadimo oo ama aan iraahdo waxaan daneynaya laakiin dabcan taygu weyn waxa weeye inaan qarankan intii aan noolahay waqtiga in badan oo kamid ah inaan geliyo sidaan ugu shaqeyn lahaa ama ugu khidmadeyn lahaa Somaliland iyo shacabkeedaba way guud ahaanba dhalinyarta markaynu rabno inaan dhiirigelino ama kelmadii waayaaragnimo iyo tii saaxiibtinimo iyo tii shaqada baad u dirto maxaad oran lahayd runtii waxaan oran lahaa dhalinyaro marka dal la qiimeynayo ama horumarkiisa la qiimeynayo ama awoodiisa la qiimeynayo meelaha u badan oo laga eego waxa weeye waa dhalinyarada dalkaasi dhalinyarada uu leeyahay siday u fakarayaan aqoontoodu intay leeg tahay kartidoodu
intay gaarsiisan tahay iyo inay yihiin dad wax qabanaya marka waxaan kula dardaarmi lahaa guud ahaan dhalinyarada Somaliland oo dhan in nabadgelyada iyo wadajirka guudna la ilaaliyo aan ku fakarno sidii aan maanta halkan taaganahay waayo inta badan waxa la yiraahdaa madaxdii beritaati ama dhalinyaradu waa mustaqbalkii berito laakiin saynu maanta soo aqoonsano inuu nahay madaxdii maanta tabari tasaadambe marka inaan wax badan aan ku tala galno oo ah inaan ka bedelo ama ku soo kordhino ummadeena Somaliland haday tahay dhinaca siyaasadda haday tahay dhinaca aqoonta haday tahay dhinaca horumarka mid kastaba way hal daqiiqo hadaa ku siiyo ma jeclaan lahaa inaad si gaar ah u salaadid dhalinyartii gobolka Sool Sanaag Haysimo bari hore kugu dambeysay imka adigoo xilka iyo darajada iyo haya laga yaabo barnaamijkan inay daawadaan dabcan horta guud ahaan waxaan salaamayaa dhalinyarada Somaliland oo dhan intaan us naqaano ay garanaysiin intaan aqoonba meel kasta kala joogaan gudaha iyo dibadaba gaar ahaan dawladda rag badan boo saaxiibaan aan lahayn oo daafaha adduunka ku kala nool si gaar ah waxaan u salaamayaa akhyaarteydii aad ka saaxiibadan ahaynee dugsiga sare intaan ku jirnay oo xilli muddo 4 sano oo aad igu qaaliyo kulay ahaa intii maqlaysa iyo intii warkaygu gaadhaba iyaga si gaar ah u salaamaya maadaama aad chances inaan si gaar ah u salaamo guud ahaan dhalinyarada Somaliland oo dhan waan salaamaya waa tahay dawladda qiimaha iyo qadarinta leh inta waxa ku dhan barnaamijkii dhalinyarada oo namartina ugu ahaa Jamaal Maxamed Jaamac xogayaha golaha wasiirada oo aad ugu mahadcelino shaqo iyo hawlo badan oo hayeen dhalinyarada waayaarnimadiisa iyo waxyaabaha uu runtii jecel yahay inay qabtaan oo nagala qayb galiyay Cabdiwali Samriye Jimcaale Cali Ibrahim Maxamed Aqli Hadi Jamaal Axmed Naasir dhamaan asxaabtaasi waxay ahayn barnaamijkan aad uga qayb qaataan inta barnaamij lamida ku kulmayno dhamaantay waxaan ugu dhaafinaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.